ده موسى محمود موسى الدين وما دقالمايو ان maxaan ku raahdaa aqli kalena kuma dagaalamayo nacay bulsho u nacib yahay nacay bulsho ma oran karnaa anaaba kulehba maxaa maadan ku weydiiyay anaa kuleh nacay hadalka sheekh waxa aniga ii muuqdeen ka hadlaya u muuqda ee dulmiga iyo darrada iyo muqaddas ma aha wa xaraam ilaahina raali kama aha dhiiga muslimka shariif ah kaasa in la ilaaliyo ay tahay waa lagu khasbay hadaba sheekh wareer walbalayo mustaageeraya Musa na dacweeyay qof kasto hargeysa ka hadlaba burca ka hadla ma jeerteenkiiba wax ka dhigeen wax kala والله بالله إن بخاتم اللي هذا لقى هو سديسين بكلية سوماليلاند والله بالله إن سوماليلاند واحد اللي هذا لقى هو سديسين سوماليا سي مدحوينا أقول نقول لهاي كشقين ومدحوينا سوماليلاند كاقدر لهاي لكن هذا يردتن حافظا أنا عسكري النودة شركة اسمها قريها من نارا هومس دلك أو نبضان إيه دولة نمدا ويان وحن درسية نيو الدنيا بكو قارني دارنكي ديسايا إيمنك بديار هو دقدق أو هوري أقار من نارا هومس قف باقلكي أو دوناي دقدق أو ديسان قري هوست يدو شبا وعن أون دلاعين بدكي دبادد أيامنا سودق يراهدان من نارا هومس شركة اسمها قريها من نارا هومس وشركة أقوين إيه الصومالي ليدا هاي كان هو القرشاع عاصمة ودنك كينيا نيروبي waxayna dhistaa guryaha noocyadooda kala duwan waxaana maamulo culimada ugu waaweyn geyiga Soomaaliyeed waxayna shirkadu u diyaarisay macaamiisheeda ammaano iyo adeeg hufan shirkada dhismaha guryaha ee Nara Homes waxay bulshada ugu bishaaraynaysaa inay u hayso apartment iyo qurux badan oo naqshadihii ugu dambeeyay ah qorshaha lacag bixinta ama waxa loo yaqaan payment plan waa muddo 4 sano ah maamul iyo shaqaale ku sifoobay soo dhaweyn ku deeqda kugu heelan halkaas wixii faahfaahintaas dheer kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda haddaba ballanteen waa Minara Homes بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركز كل ونكسن كسر دوما برنامج كنا دبك هذا اللي قريب كله قريب تنوحي نكدو الاستاجي دونا شيخ عانكا عالم كالصوماليات شيخ مصطفى حاجي إسماعيل هارون وشلي صلاة دي عيدة كهذليي يا هذا ومركزي شيء أيه نبلير دول استاجي دونا هذا الكاس وكوس أبصنا رماه حدودها ومركزي مدحونها الصومالي لأن مدن مصبح عبدنا وشيء إن حدود دي إنجليزكو وجهي Soomaaliya Somaliland ay muqaddas tahay oo aan la talaabi karin isla markaasina ciidamada Somaliland marnaba aysan ka joogsaneyn xuduudaas inay soo taabtaan oo ay muqaddas tahay sheekh oo arintaasi muqaddasnimada kelmad kooban kaga hadlayna bar waxaynu eegi doonaa kelmadaasi iyo waxa uu ka yiri waxa ila jooga saaxiibka jaamac sheekh Mustafa إسماعيل الشيخ مصطفى حاجي إسماعيل هارون وعالم صوماليات ولا يقانا ضد كصوماليات بجودهان تودي تشعلين ومن دين الإسلام كأدوه المرسن علم المادي أنا كدر صدي يدو سياسة هاي أرماء سياسة ده أنت بدن كما هذا وكجاب صدا شلي هذا الكيسي خد بدي عيدة محاكا قد حبه بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهان ببد الصوماليات ملك استيجون بحلي سلام الله عليكم شيخ مصطفى شيخ مصطفى شيخ إسماعيل هارون جودهان شعبك الصومالي الله جارهان أنت ماشي كل تكت يو محمد هذا جودهان بدي عيدا بركة سميشة أن السجوي الله بركيان له وأنا سلام يا سلوك على فيصل على وراه سلام ماشي وكحظ لي ماشي سلام سلام بل لو كل تقول مساجد ده موقت هرجيس مصبيحي وهذا يسقو باش هنلعب كنت كذي والله وشيخ باش سمعنا عنه شيخ عالي وصوالي هاي سام هاي شيخ مصطفى هاي قيمتي كان حي اوكي فيصل روح الشيخ وصار على بالنا ها كسعادوه شيخ مصطفى فيصل لما كنت كده ماشي كهالله اسنا ماشي كهالله لبدوا marka waan soo qaadan doonaa insha Allah taala okay شيخ مصطفى حاجي اسماعيل horta waa run waa sheekh Soomaaliyeed sheekh muhtarima sheekh khiyaar ah sheekh ehludiina sheekh maxaan ku iraahdaa aqoon adduun iyo mid maadi iyo de maxaan ku iraahdaa diiniba xambaarsan way waa warathatul anbiya way waa dadka maaragtay yaani farakutiriska ah
علومta labada dhinacba looga maaragtay to faa'iideysan karo bulshadana hadii ay wax ka maaragtay dadaalka ay ku bixinayaan yani wadaadada noocaas hadii ay ka faa'iideystaan wax badan ay ka dhaxli karaan weeye sheekhu Allah barakeeye si kooban buu uga hadlay si dhab uu marka uga hadlay waxa la hadal nin badiyayna ma wada oran nin yareeyayna kama wada tagin hadal kooban oo nuxur iyo macno badan xambaarsan oo qofkii ku waano iyo wax qaadanaya ugu filan waana iyo wax qaadasho yu sheekhu yiri waana intii laga filayay hadda ka hor ya Sheekh Maxamed Cabdi Umar oo ma hadda inuu inaga fogeyn iyo Sheekh Shibili ya ka hadlay dagaalka laas aano wixii kala gudboona bay ka dhaxeen marka Sheekh Umar waliba waa sii afeeftay wala kala ordayo muxuu afeeftay muxuu yiri markaa wuxuu yiri arinta meesha waxa ninku wuxuu uga hadlahayo ba halkii casabiyad iyo waxba la dhihi buu yiri moogtahay yeelkadooda wax doonay ilaahay xaqa masaajida laga shiday oo la yiri wadaadkii reer hebel wuxuu ka afanay wadaad yani masaajida laga hadlay oo la qabyaalad yuuga hadla wax kalena muusa dhihine war dhiiga dadka islaamka waa xaraam dadka dawlad baa maamul u ahayd oo mas'uul ahayd oo iyadu dusha u ridatay oo damaanad qaaday amnigooda inay ilaalinayso way ku fashilantay haday ku fashilantay oo dadkii ay kaceen in xabad loogu jawaabo ma ahayn buu waana run intii meesha taalan baa ahayd intii oo ka sii xeel dheer oo maxaa ku khiyaaliga muujinaysa yu Sheekh Mustafa ku hadlay xuduudi garaad cali baan raadinayaa buu leeyahay moogtahay waa muqaddas war wallahi inaanay muqaddas ahayn xuduud galjac dhiiga qofka muslimka ah ya muqaddas ah Allah ilaaliyo waxa lagu dilo man qatala نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما دينتي ودان دبركو كتوري موسى حدودي maxaa ku yiraahdaa tagaalkii magac laha ya taasa diin u ah taasa aqli u ah tiina tabar uma u hay haduu tabar u hay maxay ka dhici lahaa ciilba ma aanan qabeen haduu caawo tabarteeda iyo taladeeda yaa ma Sheekh Mustafa Musa la hadlay wiilasha meesha hanaga leeyin حدود كهذا شيخ يا ها حدود ده موسى محو دغالمay موسى دين وما دغالمayo ان maxaan ku raahdaa aqal kalena kuma dagaalamayo nacay bulsho u nacib yahay nacay bulsho ma oran karana anaaba kulehba maxaa madan ku weydiiyay ana kuleh nacay ma aha bulshada u nacib yahay waliba ma nacay bulsho nacay bulsho harti la yiraahdo u nacib yahay waliba qoran ma jeerteen la yiraahdo u nacib yahay waa xuduud baba ya hadhow nacayb kaas u dagaalamaya hadii uu xuduud tagi karin wuu og yahay wuxuu isleeyahay armaanta fursad hesho oo uun hesho hadalka sheekh waxa aniga ay muuqdeen ka hadlaya oo muuqda ee dulmiga iyo darrada ee muqaddas ma aha waa xaraam ilaahina raali kama aha dhiiga muslimka shariif ah kaasa in la ilaaliyo ay tahay kaasa ay tahay in la dhowro waa in kaas wax walba laga hormariyo ilaalintiisa wax muqaddas ay tahayna ma jirto waxa muqaddaska ah waxa weeye maxaan ku ilaahdaayo dadka muslimka ah dimadooda oo la ilaaliyo sharafkooda iyo karaama maxaa leeyahay marka haday idin kula dagaalamaan baa leeyahay mushrikiintu maka in lagu dhex dagaalamo lama ogolay ogow laakiin haday dulmi ku celiyo waga hore Sheekh Umar iyo Sheekh Shibli ka hadleen dad baa inta badan laha Sheekh Mustafa muxuu la aamusan yahay kana lagu ma aqoonin in arimahaas uu dhaxal gabiyaha waa lagu khasbay hadaba Sheekh wareer hebel balayo mustaageeraya Musa na dacweeyay Musa dacweeyay wuxuu yiri wax alaaliye wuxuu Sheekh Mustafa iga qabsado uu si deynay
ragga isla soo halgameen marka xuduudda waa ka qabsaday Muuse Daayad hadda uu kibrey Muuse hadda uu kibirsanaa hore culimada ay sanamtu ka tirsanaa war malayn way Allah barakeeyo sheekh inta uma dhaafayna sheekh Mustafa si wanaagsan buu hadlay oo maaragtay ma sheekhu ma sha Allah bal hadda muhiimadu marka waxa weeye ninka la yiraahdo Muuse walaal wiilasha meesha ku leeyna oo adeer wiilasha meesha ku leeyna oo in adeer wiilasha meesha ku leeyna tagi maysid wajarteena waxa ka sokeeyay hartigi kale oo dhan ba ka sokeeyay waa inaad warsan gali iyo liqdo maxaan ku ilaahay fiqishin iyo dhul bahante iyo dadkaas oo dhan markay dhamaadaan yaa u tagaysaa isoo wajarteen uu dhaarsan yahay qof kasto Hargeysa ka hadlaba burca ka hadla ma jeerteen kiba waxa ka dhigay wax kala wili marka bay raadinayaan morgan hadayna diyaana hadda ka sokeeyay ina diyaarana ma aqaan ka reebaan wiilka quruxda badan wiilka quruxda badan weeyay عجيب وانت وقفت كسو يوميها حزبك انجينير فيصل علي ورابي اسمه ماشي الشيخ كهادلay بو كهادلay مخو sheegay انجينير فيصل علي ورابي waa salaama haya laakiin injineerka waxaan leeyahay iyo nin way baatahay xishood umada ka xishood oo ilaahay ka xishood oo munaafaqnimada iska daa siyaasaddu ma aha munaafaqnimo iyo xumaan urka loo hayo maya munaafaqad iyo uqdad iyo naxli baa ka buuxa maalin walba qashin buu dadka la soo hor fadhiistaa iyo uqdad dad la sii kala fogeeyo billahi inaan wax khaatimo la yiraahdo laga hoos dhisaynin buu ku leeyahay Soomaaliland billahi inaan Soomaaliland wax la yiraahdo laga hoos dhisaynin Soomaaliya waana saacidii ummaddu masiirkooda geyn kara soo u dhigi kara khaatimo masaga maxaa ka galay isay madaxweynaha aad ugu noqon lahayd ka shaqee oo madaxweynaha Soomaaliland kaaga dhigi lahaayeen laakiin adeer de tan xaafadan annaga iska leh nooda idiga iska leh annaga iska leh saxaafad buu hadlayay moogta xaafadan hadlayay marka la qofku luqada uu fahmahayo maalin walba inaad xaafada ka dhex sheekayso fiiri aan waxba ka gelin Soomaalidu waa reer weey soo garan adeer marka inta reer kale ka sheekeyn lahayd reerihiinaba kama lagama sheekeeyo oo annagu inta soo fadhiisana ma kala qaadqaadne maxay tahay sababta dhul bahante iyo warsangeli iyo dashiishle iyo liibaan gashi iyo dhulba uga sheekeynayo uga dhex sheekeynayo oo uu leeyahay garaad jaamac garaad caliyowna wuu xun yahay garaad jaamac garaad ismaaciilna wuu fiican yahay laba garaad oo walaala oo ilma adeera oo isku garab dhimanaya oo isku meel ku dhimanayo isku meel dhiigooda lagu daadinayo oo garaad iyo garaad xigeenkii kala ah isaga hooseeya meesha hawshan ba hogaaminaya waxa ka dhacay sool oo dhan iyo SSC guusha iyo libinta iyo guul darrada iyo jabka wax kasta oo ka yimaada meesha natiijadeeda waxa iskale garaad jaamac garaad ismaaciil ba iskale dhammaan inta kale waa ka daba tuur kiin noocaas ah waxay rabaan inay dhahaan maxaan ku yiraahdaa garaadkii Soomaaliland baad ahayd oo maxay ku kala xigaan bahar samay iyo jaamac siyaad maxay ku kala xigaan isaga maxay ugu kala duwan la socday no wagoor ku siyaasadaha marka waa laga soo tagaydii siyaad barab isagu ma shaqeyn jirin markuu ku siyaasada waa Faysal xaafada ka dhex baxan leeyahay Faysal nin walba fiiri in la is ixtiraamo Faysalow cid aad wax yeeli karto horeyna aad u yeeshay dibna aad wax u yeeli karto ma jirto maalin walba hod inaad la soo fadhiisato meesha iyo naxli oo aad maxaan ku dadkii uu sii kala fogeyso oo dadkii aad taraq iyo baasin ku sii daarto oo maalin walba hadal aan macna lahayn aad la timaado meesha yaar waa laga xishoonayaa la iskama ka celin laa qofkuna waxa fiican inuu garto in laga xishoonayo dibka meeshan jira wuxuu yahay qolada siyaasiyiinta sheegay marka shalay Faysal tamay soo wuxuu ku leeyahay dadkiiba u kala abtirinaya dadkiiba kala wadwada reeru kala magac dhibaya waa dhaaranaya ma wax soo khaatimo la yiraahdo lagama hoos dhisayo ku leeyahay Soomaaliland oo Soomaaliland buu rabaa inuu Soomaaliya ka hoos dhisay maxay tahay tiyaa diidaya in khaatimada Soomaaliland laga hoos dhiso ciidanka qaranka Soomaaliland ciidanka qaranka war hadii qaranku yihiin adeer gurigaaga la joog maxaad anaga la soo doonaysaa wuxuu ku leeyahay hal qof waligood kama aysan nixinin ma ciidanka hal qof waligood laas caanood kumayna dirin ma dulmi inta ka badan baad aragtay ma Faysal bas ha Ilaahay ugu ogyahay hal qof hal madfac kumayna toorin buur hal qof ma jartaankiina gabdhihii bay kufsanayaan buu ku leeyahay oo maxaa ka galay wiil iyo walaashi hadda isku fsadaan
kuwaaga ilaasho hay adigu kuwaaga ilaasho kuwan annaga isu keenay meesha inay isku kufsadaan adiga maxaa kala socda hay haddaan runta la isu sheegin been baa la isu sheegaya inay iskufsadaan khamrada ku dhama eeg hargeysa waxa yaala haddaan hadda ka hadlo bini aadamku way hunqaacayaan laakiin ma doonayo anigu inaan ceebaha faarfaaro wuxuu isagu ceeb ka dhigayaa in khamra lagu cabayaa laascaano isagu gudihiisa yaa soo arkay ma isagu gaadi isagu ma gudihiisa baha isfiiriyo ma dagada anaga gudihiisa yaa soo arkay khamra lagu cabayo isaga dhahayadee isaga weydiinaysa taa khamra sheegay ilaahay ma jeeri gama lagu cabo maxaa ka galay isaga maxaa ka quseeya hadduu khamra ka sheekeynayo ta gurigiisa taalaha ka sheekeeyo hadduu naag la kufsaday iyo tula fuuray ka sheekeynayo kuwii maxaan ku idhaahdaa sidii la ogaa hargeysa dhexdeeda loogu galayay isagu adeerka u ahaa ma weligii ma ka hadlay isagu adeerka u ahaa ta Axmed Muuse Biixi fiid gurigooda kala baxay oo tu walba jabiyo kood walba jabiyo war sirdoon baan ka hadlayaa dib had seelada gacanta sirdoon baan ka hadlayaa dawladeed tu la baxay Axmed Muuse Biixi uu xukumo la baxay kood walba soo jabiyay yuusidi meedahan u soo tuuray isagaana adeero gabadh laas caano joogtuna ka hadlaya awliya anagu waagan joognay saasaan ahay aad baa maasantahay Soomaaliya garan waxaan leeyahay marka Faysal Ali Waraar gudaha dadka kala hafiirina adigu gudahaaga fiiri dib isugu noqo adigu dib isugu noqo aqalkaaga ka shaqeey aqalada reeraha kalena ka bax iyaga iskale dadkan guryahooda Faysal dagaalka si toos ugu jira jawaab ugu hanbal hal qofna ma naadilin hal qofna lagama dhiijin hal qofna lagama nixinin ma jarteen baa leenayay arunta yar duqeynta disheeyad ma waa ma jarteen buu wax soo dhibkaas ma jarteen bageystid way hay waa maasan tahay waxaan leenahay oo Faysal argacaliye aw ninkii kale wadan xukumaysa waxa ka baa ورقة مسؤول خياره هلو خير يا ونكاس نجو ما عبد العرب عبد العرب هدول عيدا كان تاجر سنة هنا ده وصح هو كو خسبني هاي إنه سايس كيل هذا لكن أغمهم بليين يا شعب كي علايين يحسوق يا جيست هل قف أمين شن طبعا كاسنا إلى يومنا هذا هل قف أمين الدين بكليه فزعوا هل قف أمين الدين يا ضدك يا دليل بدك وهو ذا شرلينيين أو تعب اللوجيني وحول بالسيني ذا واساس به بقول مشرتين بهذا اللينية حكى قال مشرتين سجى حافظها وما صدق جامعة قال أنت ما رحت نجح الشوط بالله حافظها النودة غير وقع لي هذا ما صدق وايه أنت كسوق بقبيل قضب كان أنت المركل كل مدونه وعن الله أساسي النود قليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.